عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشي الملك حسن محمد وي آبا ويلا أيا waxay u dooreen wiilkoodii kaliya ku ahaa gabar saalixada ah wax walba sameynaysa Allah ugu cabsato. Gabadhii isbuuc kasta waxay soo booqan jirtay labadii waalid si ay ugu qadmeyso halka wiilku uu ku marmarsiyon jiray shaqadiisii iyo howlihiisa uusan soo booqan jirin waalidiintiisa. sanad markii ka soo wareegatay wiilkii gabadhi waxa uu dhashay wiil aad u qurux badan halkii gabadhi ay ka murugootay inaysan arkin saddexdeeda wiilka ku soo biiray qoyskooda halka odayga uu ka murugooday geeridii sawjadiisii saalaxada ahayd. Gabadhi ayaa waxay ku qalqaalisay inuu u soo wareejiyo aabihiisa guriga maadaama ay ka geeriyooto hooyadii. Odayga ayaa isku dardarsamay oo noqday sidii ilmihii oo kale. Wiilkii ayaa aad ugu carooday midaas si xunna ula dhaqmi jiray aabihiis. Gabadhi ayaa waxay soo xasuusisay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa labada waalid waa albaabka dhexe ee jannada ninkii doono ha xifida ninkii kalena ha iska dayaco. Wiilkii ayaa ka murugoon jiray inuu odayga ka dilo wiilkiisa yar laakiin odayga aad ayuu u jeclaa wiilkiisa yar maxaa yeelay aad ayuu u ciyaarsiin jiray waqtigiisa ugu badanna uu ku qaadan jiray. Wiilka ayaa wuxuu ku fikiray sida uu yeeli lahaa odaygan. Maalin ayuu ka xeeyay gaarigiisana uu saaray uuna ku yiri waxaan aadaynaa dalxiisina keen. Meel saxara ay markay soo gaareen geed hoostiis intay fariisteen ay nasteen ayay qadeeyeen. Wuxuuna ku yiri gaariga xaggiisa u soo carar oo odayga meesha kaga soo carar ama dhurwaaga ha cuno ama qofkii doona ha qaataane. Gabadhi ayaa waxay ku tiri haye way ka ogolaatay. Markii in yar sii socdeen ayaa wuxuu ku yiri aabe ilmihii yaraa aan ciyaarsiiye. Markaas waxay ku tiri meeshaad ugu soo tagtay aabaha oo ah ayaan asagana ugu soo tagay maxaa yeelay waxba kuma taraya bari isla sidii ayuu adigana ku yeelayaa ama dhurwaagu ku soo dhigayaa ama saxaro kaaga soo tagaya. Wiilkii ayaa intuu qeyliyay uu ooyay uu gaarigii xooli ku waday ayuu soo laabtay. Odaygii ayaa waxa uu imaaday dhurwaa oo geesaha ka soo maray si ay ugu qaataan cunuga. Dhagaxyo intuu aruursaday ayuu isaga ceeriyaa. Wiilkii ayaa aad ugu murugooday oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambi dhaaf weydiistay aabihiisna ka codsaday inuu cafiyo. sidii ayuuna wiilkii ku noqday wiil fiican oo aad u adeeca waalidkiisa sawjadiisana wada sax ayay u tustay.